mahadsantihiin dhammaan telefishinada meesha joogo saaka halkan waxaa ka dhacay aabahayga waxaan u imaaday awalba horta waxaan rabay waxaan go'aansaday inaan waalidkayga horta aabba inta aan ka bixiyo go'aankayga wuxuu ahaa awalba inaan meeshaan ka bixiyo anoo intaa go'aaminayo waxaa dhacday maalin anoo shaqo u socda boorka u socda waxaa arkay meeshaan derbi lagu wareejiyey dan isla maalinta kale abaayo meeshaan imaaday ilaa maalin walba khamiis walba aabba soo booqanaa quraana isaga akrinaa waa u ducaynaa abaayo markay xaafadda imaaday waxay dhahday aboowe meeshaas derbiga lagu wareejiyey dadka qaarna waxay sheegayaan in meeshaan ay dhici karto in miidadka laga bixin doono marka saa awgiisa familka markaa waxaa go'aansanay awalba meeshaan markuu aabba dhintay waxaa sababta loogu duugaa waxay ahayd maadaama madax badan ay ka qaybgalayeen aysan jirin meelo dhaadheer inay aadi karaan saas dartiisa koogiiba loogu duugay marka maadaama arrimahan ay soo bateen wixii aan aragnay waxaa go'aansanay awal annagoo go'aankeena uu ahaa inaan meeshaan ka bixino saaka waxaa go'aansanay inaan ka saarno wax hadda dawlad noo imaaday na dhahday meeshaan waxaa laga saaraa ma jirin maasha allah si fiican si wanaagsan askarta meesha joogtay way nagu caawisay way soo dhaweysay markaa saaranaynay baabuurtiina way noo soo fasaxayn marka hadda markaa oo idaacaddii iyo hadalkii aan dhaha waxaa loo qaatay inay ali dawladda ay amartay ay dhahday meeshaan aabbahay ka saar iyo hadalkaas yar oo aan dhahaa waxaa loo qaatay si kale loo fasirtay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegi lahaa kama wadin inaan ummadda barakaciyo waalidkayga awalaaba go'aankayga uu ahaa inaan meeshaan ka saaro oo meelaan aan dhihi karo awalka waalidiinteeda lagu duugi jiray inaan ku duugo wax kale oo hadda oo cusub oo aan dawladda iyo waxyaabahaas aan kala jeedina ma ahayn shacabkana waxaan leeyahay qof walba xor waaye waalidkiisa meesha walba ku duugan karaa awalna anayba go'aankayga ahayd inaan meeshaan ka bedelo aan meel kale geysto oo waalidiinteeda lagu duugi jiray marka wax kale cusub ma jiro intaasaa idin sheega aad u mahadsantihiin